madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Abdi iley ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira shidaalka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Abdi iley oo la hadlay idaacadda BBC-da qaybta afka Soomaaliga ayaa sheegay in uu shidaal badani ka buuxo deegaanka Soomaalida Itoobiya. wuxuuna sheegay in xukuumadda Itoobiya ay muddo badan ku hawlanayd sidii ay u soo saari lahayd shidaalka cayriin ee ka buuxa deegaanka Soomaalida Itoobiya. wuxuuna sheegay in uusan wax badan ka warhaynin asagu mar uu la hadlay idaacadda BBC-da qaybta afka Soomaaliga. waxa uu sheegay in qaar ka mid ah ceelasha shidaalka ee gobolka Jarar degmada Cobole uu u xiran yahay shakhsi Tigree ah oo lagu magacaabo Tedros Ashanafi. Abdi iley ayaa arinta shidaalka kaga hadlay xaflad lagu qabtay magaalada Qabri Dahar oo loogu dabaaldegayay soo saarista shidaalka. Abdi iley khudbadiisii waxaa ku jirtay qaar ka mid ah ceelasha shidaalka waxaa gacanta ku haya kii iska dhaafa waynu isla wada garan iyo ereyo maldahan waase la iskaga daba yimid ayuu yiri. muuqaalka iyo hadallada Abdi iley waxaa ka muuqday oo laga dhadhansan karayay in uu yahay nin xuurta lagu haystay muddo dheer. dhinaca kale ururka ONLF ayaa cambaareeyay qodista iyo soo saarista shidaalka cayriin ee deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuuna ku tilmaamay in ay tahay boob qaawan oo lagu soo qaaday deegaankeena. xukuumadda dhexe ee Itoobiya oo la wareegtay gacan ku haynta mas'uuliyadda ceelasha shidaalka. maxaa sababay la wareegista ceelasha shidaalka ee Kaalu iyo Elele? sida cid waliba ogsoon tahay taliska TPLF ee siyaasadda looga adkaaday ayaa ka waday deegaanada Soomaalida Itoobiya dil, dhac, boob, kubsi iyo barakicin gaar ahaan deegaanada Cobole iyo Elele iyo Kaalu oo goobo shidaala. taliska TPLF ayaa goobahaasi ku xasuuqay 100,000 oo rayada muddo 27 sano ah si ay aagaasi uga soo saaraan shidaalka cayriin ee ku jira. qaar ka mid ah saraakiisha iyo generaalada TPLF ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii ay u soo saari lahaayeen shidaalka cayriin ee maanta. waxaanay heshiis beenbeen la galeen shirkado laga leeyahay wadamada Malaysia iyo Indonesia iyo China. isla taliska TPLF oo gabaad ka dhiganaya shirkadaha shisheeye ayaa heshiis la saxiixday xukuumadda Itoobiya oo ay garwadeen u ahaayeen qowmiyadda Tigreegu. sarkaal ka tirsan taliska TPLF oo lagu magacaabo Tedros Ashanafi ayaa iskale saamiga ugu badan ee ku baxay ceelka Cobole oo aan weli xariga laga jarin. shirkado bug ah oo laga leeyahay wadamada Indonesia iyo Malaysia iyo qaar ka mid ah maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaashanaya taliska TPLF ayaa ku heshiiyay sidii ay u qaybsan lahaayeen saamiga iyo dhaqaalaha ka soo baxa shidaalka cayriin. taliska TPLF ee macangaga ayaa qori dable oo qiiqaya la dhax cararay muddo 27 sanadooda wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Soomaaliya, Djibouti, Sudan iyo Eritrea si uu ugu amarku taagleeyo ugana gurto khayraadka dabiiciga ee uu Ilaahay ku manaystay wadamada bariga Afrika.